Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaaw Iska Kitchen Channel. Maanta waxaan idiin hayaa video aad u fudud oo aad u macaan badan. Waxaan sameeyay shawarma digaag ama dooro sida u taqaanid. Waa maasha Allah tabaarakallah. Gurigaada ayaa ku samaysan kartaa. Hadda kadib waad ka maarmi doontaa inaa dukaamada ka soo iibsato ama dukaamada ka soo gadato. Waxaa u baahan tahay waxaan oo inta ku qoran. Waan idin sii faahfaahin doonaa insha Allah. Waxaa u baahan tahay digaag ama dooro oo cad aad u yaryaraynaysaa. Qayb ayaa u jaraysaa marka hore si aad u yaryarayso. Ha uga dhigto si xaleef ah. Aad u yaryaraynay si dhuudhuuba u jaraysaa marka koowaad. Waa kana sidan camal. Kadib waa sii gaagaabanaysaa idoo dhuudhuub ah. Kuleytaba adiga sida u jarjaratid waaye. Aniga saana u jarjartay. Waa tanahaa waa wada dhammaynay. Waxaa u baahan tahay hal qaando weyn oo maraq digaag ah. Hal qaando xawaaji dhuudhuub ama cumin. Hal qaando oo kabsar oo la qalajiyay ah. Waxaad kaloo u baahan tahay hal qaando oo xawaaji kaari ah. Hal qaando oo tuun oo la qalajiyay ayadana. Waxaad kaloo u baahan tahay hal qaando yar oo huruud shiidan ah. 2 qaando oo saytuun ah ama olive oil. 2 qaando kabsar oo fresh ah aan soo jarjaray ku daraa. Kadib waa isku qasaa sida ay si fiican isku dhex galaan. Xawaajiyaasha iyo maraq digaaga iyo kabsarta iyo digaaga ama doorada iyo saliida. Kadib 2 saacadood ugu yaraana meel dhigayaa. 2 saac kadib waa noo soo dhamaatay. Hal qaando birta waan soo qaadanaa hal qaando oo saliid olive ku daraa. Kadib waxaan ku daraa dooradii oo diyaar ah oo si fiican u dhex gashay. Isku day doorada inaad daboolin. Haddii kale biyo ka dhalaysa markii biyaha dhasho ma fiicna. Sidaan inaa ku karisid isku day adoo huurin. Wax yar kadib walaaq ama si u kala baxdo doorada sida u kala. Ilaan doorada way isku dhadhagan tahay. Way isku dhadhagaysaa markii waxa aragto marka isku day inaa kala fufujisid. Waa tanahaa half bisel waa hadda sida u jeediin. Markastaba waan walaaqoyaa. Hadda diyaar waaye waxaan ku darsaday 2 basal ah oo dhuudhuub u soo jarjaray. Isku dhex gelinoyaa. Waxaan soo jartay barbarooni oo 3 kala nooc ah. Kalarada indhahay soo jiidanaysaa waa la jecel yahay marka ku badi kalarada kala duwan. Waa tanahaa haddaan shawarma samaysanayaa. Shawarma uma baahnid inaad dukaamada ka soo gadatid adoo gacantaada ugu samaysan kara. Tan guriga aad iyo aad aga macdaa kan dukaanka lagu gado. Waana nadiif waxaad ogtahay ka samaysay. Casho ka dhigo ama qado ka dhigo. Caruurtaada u sameey. Waa maasha Allah tabaarakallah. Hadda waxaan ku darayaa sooskan la dhaho yogurt garlic sauce. Waa soos aad u macaan badan. Shawarmada asaga lagu cunaa. Dhadhan aad ahayn u yeelaa. Insha Allah waa soo geli doonaa asagana. Iyo hummus. Hummuskana aad u healthy u yahay u macaan badan yahay. Sawaayaddan ka sameeyayna waa sawaayad madow ah. Insha Allah waa soo geli doonaa.
waatana maasha allah waa noo diyaara shawarmadeena. Inaa ka heshayna rajeynayaa. Khayr badan aa idin dhaafayaa walaalayaal. waa inoo mar kale insha allah. maca salaama.